maansada aan halkan ku duubayo magaciiga koowaad waxa la yiraahdaa Ababiya. magaciiga labaadna waxa la yiraahdaa adeega. magaciiga saddexaadna waxa la yiraahdaa urursha. magaciiga afraadna waxa la yiraahdaa astura. magaciiga shanaadna waxa la yiraahdaa iftiinsha. magaciiga lixaadna waxa la yiraahdaa arxama. magaciiga toddobaadna waxa la yiraahdaa amaana. maansadaas oo aan ugu talagalay hooyooyinka oo dhan oo ka hadlaysa qiimaha ay leeyihiin ayaan idiin soo gudbinayaa. maansada Ababiyana waxa ay ku bilaabantay hooyay adduunkiyo ifka waxa dad jooga ubadkaagi weeyo aday ka abuurmeen hooyay adoomaha adiga aan qariyo idilkood ba ababshe istareex ku noolow hooyay adduunyadu tiyo aan banaysaad usha aad u qabatood u tilmaantay iridde istareex ku noolow hooyay adoomaha barti laga unkama iyo aasaaskii noloshiyo ayahoogii baa tahay hooyay ilaysiyo waxa tahay iftiinkii adduunyada hagaayee istareex ku noolow hooyadu dhig adagiyo waa udub dhexaadkay adduunyadu ku taagnayd hooyadu ilwaadiyo waa ubaxay dhaayuhu ku ildoogsanayeen hooyadu iftiinshiyo indhaheenni weeyaan iyo lama ilaawaan hooyadu arxama iyo ardaa lagu barbaariyo soo urursho weeyaan hooyaa akhlaaqiyo edab laga bartaayo aadmiga u mudan sharaf hooyaa aqooniyo alif laga bartaayo loo uursamaadaa hooyaa asluubiyo anshax laga bartaayo caku la ixtiraamaa hooyaa afkeenniyo erey laga bartaayo abaalkeedu weyn yahay hooyaa ammaaniyo arxan laga bartaayo ifka loo adeegaa ubad hooyo haystaa aynigooda dhaafo istareex ku wada nool ubad hooyo haystaa dhibaatada adduunyada u adkaysta weligood ubad hooyo haystaa abidkood ma hoogaan mana arag xumaadaan ubad hooyo waayaa aayaha ka quusto urugiyo ku nool ciil ubad hooyo waayaa way abaarsadaanoo ilnugayl ayaa dila ubad hooyo waayaa ogaan kara wanaaggiyo intifaaca hooyada aqal hooyo joogtaa ila wada xariiriyo udug iyo dugsoon badan aqal hooyo joogtaa qurux iyo ilwaadloo indhuhuna ku doogaan aqal hooyo joogtaa oday soo jireeniyo ubad lagu daryeelaa aqal hooyo joogtaa ifka nolosha taaliyo dhibta lagu ilaawaa hooyadu adduunkiyo aqalkay ka maqan tahay waa duni abaar iyo omas iyo haraad badan hooyadu adduunkiyo aqalkay ka maqan tahay arwaax nool ha joogtee ubba laguma aamino hooyadu adduunkiyo aqalkay ka maqan tahay udug iyo dugsoon male iyo ubax la daawado hooyadu adduunkiyo aqalkay ka maqan tahay ayda duurka joogtiyo abeesaanu hooyanayn ilmaheeda hooyadu dadka oo u fadalay udgoonow tidhaahdaa ilmaheeda hooyadu aaruga ma roorto ay bannaan ma seexiso ilmaheeda hooyadu cidka oo hisiisiyo dhib soo gaadha ma oggola ilmaheeda hooyadu ma gaddooma iibiso mana erido weligii ilmaheeda hooyadu iyadaa u aabba'a haddii uu agoon yahay waa ininya aadmigu ka abqaalme hooyo qof inkire ma loolamo weligiina ma aflaxo axad hooyo laag dhigo kuma uuna dunidee haddaan hooyo iibiyo adduunaan ku heli karo ifka waxa dad joogiyo adduunyada ma siisteen ilmo hooyo haystaa tebi maayo aabbo agoon cidima moodee ababshaay ha iilanin asturay ha mudannaar adeegay ha biyadhicin arxamay ha murugoon soo kaa iftiinshaay aadmigaadu mudantee qofay hooya adhaxdiyo oofta ay ku qaaddo ibaheeda nuugaa cawo iyo ayaan leh markaan oohin ciirsado hooyadii iliya baar iyo afgaran ogaydee ereyada macaaniyo heesaha ammaanta
igu aamusiisaay ku aroor jannada oo aakhiro cadaab iyo olar naarta laga shiday kaa ilaali mawluhu